aniga oo moolaf meerka ka yimaada maalinta iida oo ilmahayga isla soconno baan wiila isoo daba galay halisaha xaaladda nabadgelyo markay ummad la kulanto waxa ugu horeen ugu nuglaada haweenka iyo caruurta haddaba haweenkan iskood isu abaabulay waxa ay la kulmeen dhibaatooyin loogu geystay xaafadii ay deganaayeen qaasatan goobta ay gaadiidka ka soo raacaan ama ay uga soo degaan waxa ay la kulmeen haweenkani tuuga dhacda telefoonadoodii boorsooyinkoodii halis geliyeen naftooda waxay maanta isugu soo baxeen inay baaq u diraan madaxda magaalada si looga iifiyo nalal wadadan boosteeye maxamed oo ka shaqaysa xaafadan ayaa inoo sharaxaysa waxay isugu soo baxeen faynuusyadana ay wadada u dhigeen sababtan waxaan u sameynana waxa waaye dhinacan sida Riverside 15 Street iyo 6 Street masaajidka Quba geeskiisa meesha treenka laga raaco waa meel mugdi ah marka dadka badanka ma isticmaalaan habeenkii jidkan maxaa yeelay waa meel mugdi ah marka waxaan rabnaa inay siriga aqoonsadaan meesha inay nal u baahan tahay oo ciyaalkeenana ay ku badbaadaan dadkana ay ku badbaadaan cabashada isu keentay haweenkan ayaa ah mid aysan u ogeyn maamulka magaalada oo mar aan weydiiyey inay kala fariisteen arrintan ay igu jawaabeen in baaqani uu yahay kii koowaad ay ku soo gudbinayaan cabashadooda xaliimo xasan oo muddo dheer deganeed xaafadan haweenka faynuusyada wadada safayna ka tirsan ayaan weydiiyey waxa ay faynuus u doorteen dhibaatada aan faynuusta u dooranay waxa weeye dhib naga haysta meesha tan dhinaca tareenka haddii dadka soo dego waxa laga xadaa boorsooyinka taleefannada marka dhibkaas ayaan u waxaysanay faynuustan u dooranay in loogu sameeyo meesha nalal waaweyn oo faynuusta ay tahay faynuustuna waa hidiye dhaqankeennii waxaan kaloo xaliimo weydiiyey cidda ay u cabanayaan oo ay rabaan inay faynuusyadan nalal waaweyn ugu bedelaan diriga iyo cid kasta oo ku shaqo leh nabadgelyada markaas meesha mugdi hadday tahay nabadgelyo ma jirto baaqan ay u direen haweenkan la kulmay dhaca iyo tuugada maamulka magaalada Minneapolis ayay ka rajaynayaan in codkooda la dhageysto nalal iftiimana loogu yeelo wadadaas si ay uga badbaadaan tuuga mugdiga ugu soo gabada habeenkii Siyaad Siciid Saalax BBC Minnesota